Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maalin wanaagsan dhammaan saaxiibadan ku xiran janaalkeena Farsoon. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxa uu hadli doonaa inaadan naftaada barbardhigin dadka kale. Muuqaalkan waxaa kula wadaagi doonaa qiso aad iyo aad u cajiib ah. Haddii aad tahay saaxiibni waxaan ka codsanaynaa inaad janaalka noo share gareysi. Haddii aad tahay saaxiibada hor nool joogna waxaan ka codsanaynaa inaad noo taageerto. Kusoo dhawaada muuqaalkeena sheekadeena maanta. Waxaa jiray tuko ku noolaa keenta oo aad u qanacsanaa noloshiisa. Tukuhu marnaba lala barbardhigin xayawaanada kale. Laakiin maalin ayuu arkay boolo. Markii uu arkay boolo ayuu ku fikiray sidaan: waxaan ahay mid madow, boolo waa mid aad u cad. Boolo waa inuu noqdaa shimbirka ugu farxadda badan adduunka. Tukihii waxa uu u sheegay boolo sida uu dareemayo. Runtii boolodii ayaa ku jawaabay: waxaan dareemayaa inaan ahay shimbirka ugu farxadda uguna quruxda badan shimbiraha ilaa aan arkay baqbaqaaqa, kaasoo leh laba midab. Hadda waxaan qabaa baqbaqaaqu inuu yahay shimbirka ugu farxadda iyo nasiibka badan adduunka. Kadib markii uu maqlay in tukihii go'aansaday inuu raadiyo baqbaqaaqa, markii uu helay baqbaqaashii ayuu u sheegay wixii ilaa hadda ku dhacay iyo waxa uu ku fikiray. Sida uu ula yaabay tukihii, baqbaqaaqii ayaa ku jawaabay: nolol farxad leh ayaan ku noolaa ilaa aan arkay daawuska. Waxaan leeyahay laba midab oo kaliya, laakiin daawusku waxa uu leeyahay midabo badan. Tukihii waxa uu go'aansaday inuu naftiisa arko, sidaa awgeed waxa uu booqday daawuskii beerta xayawaanka. Mar uu meeshaas joogay ayuu arkay in boqolaal qof ay iskugu soo baxeen si ay u arkaan daawuskii. Markii dadkii meesha ka baxeen ayuu tukihii ku soo dhawaaday daawuskii. Gacaliya daawus, tuki ayaa yidhi, aad ayaa u qurux badan tahay. Maalin kasta kumanaan dad ayaa u yimaadaan inay ku arkaan adiga iyo baalashaada quruxda badan. Marka lala barbardhigo anigu, ma ihi mid nasiib badan oo weligay kuma farxi karo sidaada oo kale. Marka ay dadku i arkaan, markiiba way dhuftaan oo xitaa dhagaxyo igu soo tuuraan. Waxaan u maleynayaa inaad tahay shimbirka ugu farxadda badan meeraha. Daawuska ayaa ugu jawaabay isagoo murug ka muuqato indhihiisa: mar walba waxaan moodayay inaan ahay shimbirka ugu quruxda iyo farxadda badan meeraha, laakiin quruxdeeda awgeed waxaan ku xayirmay beertan xayawaanka. Inta aan arkay oo aan nolosheeda la kulmay, waxaan gartay inaad tahay shimbirka ugu nasiibka badan adduunka. Marka la ii barbardhigo xabsiga ilaa hadda aan ku jiro, marka waxaan qabtaa waxaad ka mid tahay shimbiraha aan qafis lagu haynin. Waxaad ka mid tahay shimbiraha aan qafis lagu haynin ee xorta ah, inuu baalashiisa kala baxsado oo aad u duuli karto meeshaad doonto. Ahmiyadda iyo qisada sheekadu ay leedahay ayaa ah naftaada inaadan barbardhigin dadka kale, sababtoo ah qof walba xaaladda iyo marxaladda uu meeshaas ku soo gaaray iyo waxa uu ku sugan yahay gudihiisa marnaba ma ogaan kartid. Marnaba ha ku go'aaminin qofka waxa banaankiisa yaala oo aad ku aragtid inuu kaaga fiican yahay. Ma jiro qof kaa wanaagsan ama kaa karti badan. Kaliya waa inaad naftaada aamintaa, kuna kalsoonaataa waxa aad haysato iyo waxa maskaxdaada ku jiro. Waa inaad aamintaa naftaada, kaliya waa inaad isbarbardhigtaa naftaada si shalay sida ahayd iyo sida aad maanta tahay. Mahadsanidin.